warbixinaha laga soo gaaraya maamulada deegaanadaasi dadweynaha hay-adaha samafalka iyo wasaaradooda waxay tilmaamayaan in deegaanadaasi ku sugan yihiin xaalad aad u adag oo ay ka taagan tahay abaar ba'an xaaluf biyo-la'aan iyo cunto yari waxaa la xaqiijinayaa inay xoolihii badankoodii baxeen dadkuna nafaqadarro iyo macaluul hayso in badanna barakacday oo ay ku soo urureen tuulooyinka deegaanadaasi sida garbadadar gargaara waraqa dhegta calixayd aala helay fadhixun ergaal fiqi aadan iyo gaarisa bulaxaar xagal berbera biyadhaadheer raarda buur laastuure iyo tuulooyinka huluul xagga xeebta ka xiga dadka ay abaaruhu saamaysay waxaa lagu qiyaasay inay keenayaan ilaa 20,000 oo qoys dadkaasi waxay u baahan yihiin gurmad degdega oo iskugu jira cunto biyo dawo iyo hoyba haddii aan si degdega loogu gurmadna waxaa jirta cabsi in badan gaar ahaan dadka jilicsan sida carruurta iyo waayeelku ay u dhintaan gaajo iyo haraan sidaa darteed waxaanu ugu baaqaynaa hay-adaha qaramada midoobay hay-adaha samafalka ee caalamiga ah hay-adaha wadaniga ah inay dhammaan shacabka reer somaliland inay si degdega ugu gurmadaan dadkaa ku tabaalaysan deegaanada ay abaarta iyo biyo la-aantu saamaysay aad iyo aad baa umahadsantahay